السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaad aad naga daawanaysaan waa Sasa Media. Sidaad ka warqabteen ba ama aad ogeedeen ba maanta waxaa marti studio inoogu ahaa wariyahayna caanka ah Cilmi Maxamed Waare oo aan ka wareysan doono hadduu Allah awoodi la raali ka noqdo arrimihii aad na soo weydiiseen oo ahaa group 5ka. mudane Cilmi Waare farxad iyo rayreen ay inoo tahay mar koowaad mar labaad mar saddexaad inaad barnaamijkan aad naga aqbasho aad nala soo qayb gasho. waxaan kugu hambaleynaynaa bahda Sasa TV ama Sasa Media waalidkaaga iyo carruurtaada iyo familygaaga ku yimaadeen marka Cilmi Waare soo dhawaad waan dhawahay Mustafa iyo waliba Yaxya wad islaamaya labadeena salaamullah aad iyo aad ayaa u mahadsantahay Cilmi Waare Cilmi sidaad ogsoon tahay bulshada Soomaaliyeed waxay walwal ka qabaan arrintii group 5ka waxay leeyihiin maadaama maamulkii isbedelayo maxaad mala joojin doonaa ma socon doonaa ma xaalka see waaye dad baa email loo soo diray emailadaas maxay yihiin waxa loo soo diray maxay yihiin waa la joojimiyaa marka arrimahaas aan rabnaa in aan ka wareysano si aan u qancino bulshadeena Soomaaliyeed Cilmi soo dhawaad mar labaad waa mahadsantahay Mustafa barnaamijka group 5 horta sidaan ognahay sanadkii 2023 ayaa January 19 ayaa wasiirka arrimaha dibadda Anthony Blinken uu ku dhawaaqay markii hore wajiga koobaad ayaa lagu furay oo ahaa qofka loo keenay inuusan ogeyn hadda December marka 2023 ayaa wajiga labaad la furay oo ahaa qofka uu rabo inuu u dacwoon karo uu keeni karo hadda shalay waxaa jirtay email ugu dambeeyay oo ay soo direen teamka Welcome Corps oo ay leeyihiin 140,000 oo qof ayaa isku diiwaan geliyay inay dad sponsor gareeyaan ama ay ka faala qaadaan oo ku nool kontonka gobol ee Mareykanka iyo caasimadda DC marka sida muuqata waa ka qaybgal aad u weyn markii la yiraahdo 140,000 oo qof oo Mareykanka ku nool ayaa waxay isku diiwaan geliyeen inay sponsor gareeyaan dad kale oo guud ahaan caalamka meelo kala duwan joogo marka arrintaasi waxa ay ku tilmaamayeen guul teamka Welcome Corps oo ay leeyihiin ma aanan filaynin tira intaasi la og oo dad oo Mareykana in intooda badan dad aysan aqoonin ay kafaala qaadaan oo Mareykanka ay keenaan oo ay u suura geliyaan in noloshooda ay wax ka bedelaan emailkan marka shalay ay soo direen team Welcome Corps waxaa ka horeeyay email kale oo 12kii bishan ay soo direen emailkaasi waxaa loo soo diray dadka xareeyay Welcome group 5 wajiga labaad xareeyay inta badanna waxaa loo soo dirayay dadka kiisaskooda aan la approve kareynin oo ama pending ay yihiin ama under review ay yihiin emailka muhiimadiisuna waxay ahayd in dadka codsaday group 5ka dadkooda u xareeyay in warbixin sharing information wax la yiraahdo inay sameyn karaan teamkan Welcome Corps iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR dadka Soomaalidu waxa inta badan ay ka cabanayeen waxay dhahayeen marka group 5 la xareeyo waxa muhiimadda la siinayaa dadkii kaararkooda ay cusbaayeen oo dadkii horay Mareykanka process iyo wax ugu maray lama qaadayo maxaa yeelay UN-ka ayaa waxay yiraahdeen dadkan waxbay mareen marka sidaa darteed dadkan cusub la hormariyo marka muhiimadda emailkan waxay ahayd in UN-ka iyo teamka Welcome Corps ay information sharing wax la yiraahdo ay sameyn karaan waxaa loo sheegay dadka kiisaskooda weli aan la approve kareynin in suuragal ma tahay inaad noo ogolaataan in informationkiina ay UN-ku ay nala wadaagaan sida qofka magaciisa xilliga uu dhashay iyo sidoo kalena proof of registration wax la yiraahdo oo ah in wax cadeynayo qofkan UN-ka waqtiga uu iska diiwaan geliyay oo kaarka qaxootiga qaatay Soomaalidana waan ognahay inta badan waxyaabaha ay sameeyaan waxa kamid ah markii group 5 ay soo baxday dad hore kaar u haystay ay wax yiraahdeen war anagu waa cusubnahay bal kaarkiina nagu dara wax oo aad la yiraahdo ama isku darsi la yiraahdo sameeyeen marka si ay arrintaasi u kala saaraan marka teamka Welcome Corps ay waxay ka codsanayeen dadka applicationadii xareeyay informationkiina ma nala wadaagi karaan UN-ka haddii aan ka codsano ma noo ogashiin haddii qofku marka ay dadka applicationka xareeyay ay yiraahdaan ma ogolin form ayaa jiray oo 22kii bishan ku ekaa oo la yiri soo buuxi haddii informationka dadka aad u xareysay group 5 UN-ku aysan doonaynin in UN-ka ay nala wadaagaan oo wax la yiraahdo information sharing kaas aan sameyno formkaas soo buuxi marka ma u malaynayo in dadku ay diidayaan maxaa yeelay already UN-ku informationkaada waa ay hayaan haddii team Welcome Corps lagu wareejiyana wax dhibaato ah qofka uma keenayso laakiin haddii aad diido
oo tiraahdo informationkayga UN-ku ma ogoli inay idinla wadaagaan waxaa ku qornayd emailka in kiiskaada dib u dhac uu ku imaan karo oo applicationkaadii uusan dhaqaaq horey uusan u soconaynin uu cagajiidi doono marka inta badan dadku waa ay ogolaadeen marka in UN-ka iyo teamka welcome corps ay informationada wadaagaan dhinaca kale Trump ma joojinaya group 5 mase ma joojinayo arrintaasi Trump ayaa loo daynaya 23 maalmood ayaa ka harsan hadda inuu xilka la wareego sidaan ognahay ninkaasi waa anti immigrant oo hadda waxaa muran uu ka taagnaa shalay iyo maanta taageerayaashiisa ayaa waxay isku haysteen viisahan la yiraahdo H1B oo maanta aan ka soo hadlay oo dadka xirfadda leh ee ajnabiga ah Mareykanka lagu keeno si ay uga shaqeeyaan ayaa Elon Musk iyo Vivek Ramaswamy iyo kuwa kale cadaanku waxay leeyihiin shaqooyinka dadka Mareykanka waa in la siiyaa oo dadka ajnabiga ah la joojiyaa oo wadanka dibadiisa laga keenayo marka Trump talaabada uu ka qaadan doono group 5 ilaa hadda lama oga laakiin waxaa loo maleynayaa ama loo badinayaa in uu joojin doono sidaan ognahay intii uu xilka hayay 4 sano 2016 ilaa 20 wakii qaxootiga yareeyay wakii lotariga joojiyay wakii dadka soo galootiga gabi ahaanba inta badan masaafurinayo xadku diiday inay ka soo galaan marka asaga iyo taageerayaashiisu sidaan ognahay waa anti immigrant hadda kuwii intii Biden uu xilka hayay wadanka sharci darro ku soo galay ayuu leeyahay waan tarxiilayaa marka aan xilka la wareego marka isaga ayaan ka sugaynaa group 5 hadii uu maadaama aysan u baahnayn wax congressku ansixiyaysan wasaaradda arrimaha dibadda ay ku dhawaaqday isla wasaaradda arrimaha dibadda ayaa joojin karta okay aad ay u mahadsan tahay sida aadka noogu faahfaahisay haddaan sii guda galo group 5ka dad badan ayaa lagu keenay group 5 dadna wali processka ay ku jiraan oo wali maxaa la dhahay yani qadka ay ku jiraan okay maadaama aad tiri waxaa laga yaabaa in group 5 kala joojiyo haddii maamulka isbedelo marka dadka imika hadda oo falaygooda sugayo ama diyaarka u ah dadkaas xaaladooda see waay haddii mar la joojiyo waa sidii loo joojiyey wax yar haddii aan dib idii celiyo Trump markii uu xilka la wareegay sanadkii 2016 dad fara badan oo flight suga ahaa qaarkood xitaa airportka ay ku jireen oo inay soo baxay u harsanayd ayuu joojiyay ilaa haddana wali halkii ay joogeen joogo marka haddii mar la joojiyo waa sidii loo joojiyay adigoo flight sugaya xitaa laga yaabo airportka inaad ka jirto oo diyaaradda inaad soo gashay ku harsan tahay haddii mar amarku soo baxo waxay tahay amarkaasi waa soo baxay laakiin dadka ku yimid already oo Mareykanka gudihiisa joogo dadkaasi qaab sharci ay ku yimaadeen lamana tarxiili karo waa wadanka waa ay joogayaan waxaan ognahay qofku marka qaxootigaan uu ku yimaado 1 sano markuu joogo green cardkiisa ayuu helayaa 5 sano markuu joogane wadanka citizen ayuu ka noqonayaa oo passport ayuu qaadanaya okay dad badan oo waxaa jira oo yani refugee ah badana group 5ka waxa aad hadda ugu faa'iideystay ama aan ognahay dadka qaxootiyaasha ah sidaad ogsoontahay waxaa tiri dadka qaxootiga waxa laga yaabaa in la joojiyo su'aalaha dadkeena badana in soo weydiinayaan waxa waaye dadkooda ayaa qaxooti u jiro ama qaxootiga joogo ama qaab group 5 ah ugu xareeyaan ama qaab refugee ahaan hore u sii joogaan oo processkaasi maraan sida resettlementiga GFA-da immigration systemka iyo caafimaadka wala waa taqaanaa arrimaha qaxootiga aad u taqaanaa oo dafalay ay sugayaan oo aanan ahayn oo yani group 5 ka ahayn dadkaas xaalkooda see waa qofka hadduu si sharciya processkiisa ugu socdo ama dad isqabo ama dad kale oo familka qaar inta ka joogo qaarkii kalena qaxootiga joogo waa family reunification ayaa la yidhaha waa dib u midaynta dadka familka ah ee labada wadan kala jooga arrintaasi sida sharciga ahaydba waa ay sii socon doontaa Trump haddii qofku uu si sharciya qofku ugu dacwoonayo hadda waraysigii ugu dambeeyay uu bixiyay wuxuu yiri dadku wadanka qaab sharciya inay ku imaadaan waan ogolahay dad ayaana muddo sanadaha sugayay inay qaab sharciya ku imaadaan marka arrintaas inay si qaxootiga inuu yareeyo waa laga yaabaa because wadankan Mareykanka sida sharciga Congress-ka 120,000 qof ayaa loogu talagalay